Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada mar labaad iyo muuqaal cusub waa walaalkiin Cabdirasaaq. Waxaad si toosa inoogala socotaan Dugsi Media. Waxaan idinla socodsiinaya anigoo Cabdirasaaq Zuuleey. Waa tahay khayrta sharafta leh, waad ku mahadsantihiin sida joogtada aad ugu xiran tihiin channelka, commentiga, laagta iyo weliba shaarka aad sii gudbisaan. Hadduu eeba idmo, waxaan jeclahay maanta inaan runtii ka hadlo waxa loo yaqaano ogolaanshaha ama diidmada, positivity-ga ama negativity-ga aad kala kulmi karto bulshada aad ku dhex nooshahay, noocay doonaan ha noqdaan, diintay doontaan ha haystaan, waxay doontaan iyo culture-kay rabaan iyo siday doonaanba ha ahaadaan. Waa tahay haddaba labadaas qodob oon jecelahay caawa inaan akhyaarta sharafta leh ee channelka ku xiran aan u waadixiyo. Maxay kala yihiin? Xagaysi iska soo geli karaan? Saameyn intee leeg ayayse ku yeelan karaan qof walba oo nool ah? That's the question mark. Su-aasha meesha ku jirta waa taas. Waa taa anaa kuu balbalaarinaya hadduu eebeedmo. Negativity waa waxa diidmada ah oo mar walba adiga kugu imaan kara, kaaga imaan kara bulshada aad la nooshahay, walaalaha, asxaabta, saaxiibada khaaska iyo weliba qaybo ka mid ah family-ga adigu aad ka soo jeedo. Okay, maxay ku imaan kartaa marka? Qaababka haddii anagu aanu nahay Soomaali aanu isticmaalno waxyaabaha negativity-ga iyo qaababka marmarka qaar dunidu ama dadyooga qaar ay u isticmaalaan waxaad moodaa xoogaa inay in yar kala gedisan tahay. Anagu qaabkaan u isticmaalnaa waxa weeye qof baa kugu imaanaya, han iyo himilaa ku jirta, passion, wuxuu leeyahay hope, buu leeyahay rajuu leeyahay. Hadday noqon lahayd inuu guursado, inuu shaqaysto, inuu wax barto, inuu safro oo halka uu joogo meel ka wanaagsan gaaro si noloshiisa uu hormariyo, siday doontaba ha noqoto. Wuxuu la yimaaday hope ama rajo ka gedisan midkii aad ku ogeyd maahana mid kale oo han iyo himilo isaga gaar ku ah oo kula yimaado. Okay, dadka marka uu hankaas iyo himiladaas iyo arrintiisa qofka uu la yimaado waa tusaalaha runtii ugu fudud ee aan raba caawa inaan maanta aan idhaahdo inaan ka bixiyo. Dadna waxay uga fal celinayaan oo ay uga jawaabayaan qaab negative ah oo mathalan hadduu yidhaahdo gabar baan iscalmanay oon jeclaaday oon habeen iyo maalinba ma fahantay aan dhinaca ku hayaa oon ku tamaninayaa inaan mar la aqal galo, dad baa laga yaabaa inay yidhaahdaan hor maanta iyo maalin la guursado lama joogo ama xilli aad guursato ma joogtid. Dabcan waxaad ku guursato ma haysatid, meeshii aad ku guursan lahayd ma taagnid, oo bacdayna hankii uu yacni qofkaasi lahaa iyo qaabkii uu qofka wax ugu sheegtay, falcelintii uu ka helay waxay noqotay diidmo isaga markaas cagsi ku ah hankiisii iyo himiladiisii. waa negativity ama diidmo. Qofkay uga imaatay rajuu la yimid, han buu la yimid, horumar buu rabaa, waxbuu qorsheynayaa, dee wax walbana qadar allah maa shaa facala. Ilaahay bay ku xiran yihiin subxaanahu wa tacaala. isagaa fududeeya, isagaana cusleeya. Adduunka wax adag ma jirto, ilaa wax walba waxay u baahan yihiin in waqti iyo wax la geliyo. Wax fududna adduunka ma jirto sidoo kale oo easy ku imaanaya, laakiin wax walba waxay u baahan yihiin inaad geliso wax walba waxa ay kaa mudan yihiin. Okay, qodobka meesha ku jira marka waxay tahay hankii adigu aa lahayd qofkii inta yacni aad ula tagtay ku yiri macquul kuuma ahan, ma safri kartid, ma shaqaysan kartid, waxbarasho oo maanta xilligan la joogo waqti ha iskaga luminina orod. Hadba programka adigu aa wadata maahane angal kale wax kaa tusaaya sidii uu hankaas adiga kugu jiro oo kale cagta ugu dhufan lahaa. Inta badan Soomaalidu waa ka dhaqan oo ka dabeecad ba, waana ka dhaqan waana ka dabeecad. Qaar baa laga yaabaa inay baxaasidnimo ka tahay oo diidan yihiin
ayagu barta ay fadhiidka ku yihiin adigu inaad sare uga kacdo oy kor kuu soo fiiriyaan waxay doonayaan inay barta adigu aad joogtay kugu celiyaan adna wax kuu qaadma maaha maxaa yeelay waxaa tahay qof hal abuur leh waxaa tahay qof hami leh waxaa tahay qof wax milicsanaya waxaa tahay qof ku fikiraya inuu hiigsiga ama hanka ama meesha uu u socdo inuu gaaro waqti badan ku bixiyo dadaal badan ku bixiyo energy badan ku bixiyo haddee inabaan caadi ahayn laakiin maxaad kala kulmay bulshada qayb ka mid ah inay definitely si toos ah kaaga hor istaagaan oo hankaagii iyo rajadaadii iyo arrintaad ula tagtay ay kaa tusaan aangala qaldan culaysyo dhibaato ku xeeran inaysan fududayn waxay kaa gelinayaan yacni markaas wixii adigu aad ka aaminsanayd waxaan ahayn okay maxaa marka adiga kuu yacni waddan noocee ah ayaa kuu furan markii aad tahay qofkii ku fikirayay intaas oo han iyo himilo iyo horumar inuu gaaro markii aad la kulanta qofka noocaasa dadku marka isku fikrada maahan iskuna qaab wax uma fahmaan isku sina marmarka qaar falcelinta dadka uga imaanaysa ugama fikiraan mamantigaas la taagan yahay ama markaas la taagan yahay ama qiimeyn kuma sameeyaan okay qofna markaas ayuu qofka u fahmaa wuxuu oo wada iyo inuusan arrintiisa happy ku ahayn tankii wuu yidhaahdaa tiisowna ka wataa dantu ha soo celisa hadduu doono soo u socdo ilaahu darbiguma ha soo celiyo qofka asagu ha arko wixii laakiin ma ku qaadanayo mana ogolaanayo qofka isaga ahe uga muujiyay diidmada ama negativeka ama inuusan qofkaasi waxaas isaga ah uusan gaari karin inta ka qaato lama fadhiisanayo ee dantuulaha buu gaarayaa wuu soconayaa ilaahay buu la kaashanayaa wuxuu leeyahay wax kaa hor istaagi karaa ama kaa celin karaa midna ma lahan marka you can do it waanu ku dhaqaaqayaa inta badana dadku way gaaraan hadday tahay waxbarashada waad aragteen nursery baa laga soo bilaabaya reception primary secondary college university ilaa marka dambe qofku master phd degree whatever oo diyaariyo wuu gaaraya intaasi sanadii bil kali kuma koobno long years wayna gaaraan waad aragteen maasha allah ilaahay baan ku mahadinaynaa marka labaad soomaali badan iyo waalidiin fara badan oo runtii ku dadaala carruurtooda iyo dhalinyaro badan oo ayagu garaad leh ku dadaala heerkii ku gaari lahaayeen intaas ayagu issii kiciyo waan ku mahadinayaa maasha allah sharaf badan soomaaliya ha guulaysato waa tahay qof qaabkii uu ku socday hadday tahay waxbarashadaas ku gaaraya shaqo hadday tahay meesha ugu hooseysoo ka bilaabaya wuu dadaalayaa wuu soconayaa finallyna waxaad arkaysaa qofkiiyo maasha allah ilaahay u kala kiciyey meeshii la rabana taagan laakiin hadduu taladii ninkii isaga ahaa ama qofkii ayada ahayd uu qaadan lahaa bartiisoo fadhid ahaan lahaa intaa muusa gaarin hankiisa muusa gaarin marka waxaan tala idinku siinayaa marka oo qodobka aan rabaa inaan uga falceliyo ama jawaab idinka siiyo qodobka negativity-ga ama diidmada aad kala kulmi karto bulshada adiga kugu xeeran ee aad la nooshahay noocay doontaba ha noqotee waxaan tala kaa siinayaa cid walba oo u aragto inay hankaaga iyo waxyaabaha adigu aad soo propose garaysanaysid ama aad rajaynayso inay hor istaagayso kaba goosaba markii aragto first exit ka baxa wab u gooy kaba socda ha ula tegin amuurahaaga ha kala xaajoonin xitaa haddaad kulantaan waxaa kaaga filan inaad qofkaas isaga ah ama dadkaas iyaga ah ee adiga niyad jabka iyo culayska iyo muxuu ku hanjabin lahaa inaad uga gudubto meeshaas oo aadan waqti badanba ku luminine dhegta ay kuu sheegeen dhegta kale ka saartid barasho wanaagsan aad tirahdid halkaasna aad uga socotid kana danaysatidba marka waxaad ku qasban tahay maskaxdaada inaad mar walbaba aad siiso fursad ay ku fahanto wax walba oo bini aadanka negative uga yimaaday laakiin adiga naftaada dan u ah inaadan cidna ka qaadan oo thoughtkaas fikirkaas isaga ah aad ka remove garayso maskaxdaada cid walba ku shubtaa marka waxay doontaba ha ahaatee cidda aad u aragto inay hankaaga hor istaagayso
kaba wareegso waxba hawla tegin kana gudub laakiin isku kalsoonow ilaahana ku kalsoonow meeshii aad u socotana waad gaaraysaa ee gaar halkaas ka bax halkaas qodobkaas isaga ah waxaan uga gudbayaa waxa la yidhaahdo diidmada kaaga imaanaysa bulshada ama negativity from the people qodobka positiveka marka ama ogolaashaha ayaan rabaa markaan inaan ka hadlo anoon kusii dheeraaninin hadduu eedmo midkan isaga ah positiveka markii raje aad la imaato oo damaaci ama horumar ama fikir ama wax kugu dhashaan dadka aad ula tagtaa from ka bilow waalidkaaga walaalahaaga saaxiibada aad kugu dhow iyo bulshada aad markaas isku dhowdihiin markaad ula tagto dadka ayagu markaasi ogol oo positive u aragta oo ogol oo waxaan dhib badnayn u aragta oo kugu taageeraya oo ku siinaya waxa la yidhaahdo moral support oo ku siinaya dhiirigelin oo ku siinaya waxa la yidhaahdo inaad talooyin aad u wanaagsan oo ay u horeyso inaad la imaato dadaal iyo adeeg iyo sidii aad ku gaari lahayd hanka adigu aad la imaatay dadka noocaasa oo ayagu kuu ogol waa dadka talo walba oo adiga kugu soo dhacda ay qurux badan tahay inaad ula tagto la daristo la kaashato garabsato walaal iyo waalid ka dhigato maxaa yeelay fikrada la isku geeyey talo la isku geeyey iyo dhiirigelin la isi siiyey ayaa han iyo horumar iyo himilaba lagu gaaraa marka adaa la rabaa inaad kala xulato oo garaadka iyo caqliga iyo garashada ilaahay subxaanahu watacaala uu ku siiyey inaad ku xulato inaad adigu ku xulato oo qofka aad u aragto fikirkaad u geysato inuu soo dhaweynayo aad taladaada wanaagsan u geysatid ood weliba qofkaas isaga marmarka qaar tala adiga waxaa laga yaabaa kula saxan laakiin dhammaadkeedu uu noqon karo xaalad kugu adkaan karta ama xaalad adiga waxyeello kugu geysan karta ama xaalad aan wanaagsanayn ama waqtiga valuega kuugu jira qiimaha kuugu jira iyo waxa aad gelinayso markii la isku fiiriyo oo kale wax isku dhigma aysan ahayn marmarka qaar dadka positiveka ama yacni ogol fikradahaaga soo dhaweynaya dadka kuugu dhow oo hankaaga iyo horumarkaaga jecel inay kugu taageeraan waxaa laga yaabaa inay dhinac wanaagsan wax kaa tusaan oo ku yidhaahdaan optionkan kalaa ka fiican ama arrintan kalaa ka fiican ee tan wax ku qaado sidaas darteed ayada laftirkeedana inaad sii consider garayso waayo oo marmarka qaar fikirka kaa maqan wuxuu ku jiraa walaalkaaga laakiin walaalkaaga waa midka positiveka ah oo maxaan ku rahda soo dhaweynaya oo aan ahayn cadowgaaga oon aad og tahay inuusan xaqdi iyo xaasinimo kuu qabin oo horumarkaaga jecel oo noloshaada jecel oo farxadaada jecel oo inaad reer iyo carruur yeelato jecel oo inaad shaqaysato dhaqaale hesho ood qof muxuu ahaye ilaahay dhaqaale siiyo noqoto jecel inaad waxbaratood heer fiican gaarta jecel qofka noocaas ah talada adigu aad leedahay waa loola tagaa go-aamada adigu shaksiyan aad leedahana weliba waxbaa laga siiyaa maxaa yeele waa qof aad aaminsan tahay adoo taadii ay meel kuu taalo soomaalidu maxay tidhahdaa ninka geeljiraha isagoo og halkuu usha ku dhufan lahaa ayuu yidhahdaa war xaggeen wax ka dhigaa marka adigoo og qorshahaagii iyo sidaad wax u wadatay iyo nidaamkaagii haddana waxaan kuu rajeynayaa hadduu eebeedmo inaad taladaada wax ka siin doonto dadka ayagu garabka iyo gaashaanka ku ah talada ku ah mar walbana jecel horumarkaaga wax walbo aad ula imaatana positiveka ah soo dhaweey qaado waxaan jecelahay intaas inaan kusoo koobo waxaan idinkaga mahad celinayaa sidaad ugu xiran tihiin barnaamijka haddii aad tihiin walaalihii hore noola joogana waad ku mahadsan tihiin la joogiina dadka aan barnaamijyadii iyo arrimaha iyo barnaamijyada ka baxa janalka o dhan aan usoo gudbinayahay waa idinka waana iga mudan tihiin waanad ku mahadsan tihiin sidaad u daawataan barnaamijyada marka kusoo dhawaada waa in kaga mahad celinayaa haddii aad tihiin qolooyinka cusub oo dib u milicsan doona ama u daawan doona barnaamijyada janalka ka baxaa si naxariis leh waxaan idinkaga codsanaynaa hadda janalku waa janalkiini nagu soo biira subscribe noo dhaha laagta hanaga baqaylinina janalku waa janal soomaaliyeed wiilkan idin hortaaganna waa wiil soomaaliyeed waxau garabka uga baahan yahana waa adiga iyo qofka kula mid ah waxaan kaa rabaa marka waa inaad iigu muxuu ahaye garab siisaa kiligta subscribe-ka marka hore ii kiciya waxaa waaye hadda nin walba communitygiisa bulshadiisa wax ku yahay insha allah waxaan rajeynayaa inaad ii subscribe garay doontaan aad baad umahadsan tihiin waxaan idinkula dardaarmayaa waa sidaan isku ogeyn ka bixiya fikradaha
khaldan ee maskaxdiina lagu shubayo fikradaha wanaagsan ee dadka idinkaga imaanayana wax ku qaata waa mar labaad iyo walaalkiin cabdirasaaq suuleyo dugsi media si toose idinkaga soo gudbinaya barnaamijka intaan kan midkiisa xiga aan dib ugu kulmayno anigii asxaabteydoo isku xiran waxaan idinkaga tagnay sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu